بسم الله الرحمن الرحيم waxaa maanta oo taariikhdu tahay 23 bishii 6 2019 ku geeriyooday cusbitaal ku yaala magaalada Ankara ee dalka Turkiga gudoomiyihii maxkamadda sare ee Puntland Dr. Yusuf Xaaji Nuur waxaan marka ugu horeysa tacsi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer Puntland xukuumad iyo shacab waxaan si gaar ah tacsi ugu dirayaa eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii u dhadhaweyd ee uu ka geeriyooday runtii waa geeri xanuun badan Yusuf Xaaji Nuur wuxuu ahaa tiirarka dowladnimada Puntland wuxuu ahaa dadkii dhidibada u aasay maxkamadaha iyo sharciga iyo Puntland waxaa gudoomiye ugu horeeyay maxkamadda wuxuu haddana ahaa gudoomiyihii maxkamadda wuxuu soo qabtay xilal kala duwan Puntland iyo dawladdii dhexe ee 19 ka horeysay Soomaaliya wuxuu ahaa dadka sharci yaqaanka ee dalka aad ka looga yaqaan runtii wuxuu ahaa saaxiib dhow buu ila ahaa wuxuu saaxiib la ahaa aabahay wuxuu ahaa ehel runtii wuxuu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan oo taariikhduna ay xusi doonto wanaagiisii iyo dulqaadkiisii iyo cadaaladiisii iyo ixtiraamkii uu bulshada ku dhaxlahaa waxaan rajaynayaa ilaahay inuu naxariistii aabasiiyo qabrigiisa uu waasiciyo dambigiisa uu dhaafo eheladii iyo asxaabtii uu ka geeriyoodayna samir iyo iimaan uu ka siiyo si dhow baan u wada shaqayn jirnay muddo dheer intaan xilka qabtay iyo ka horba shaqooyin gaar ah oo dhinaca sharciga ah ayaan ka wada shaqayn jirnay runtii wuxuu ahaa nin aad zaciim u ah oo dulqaad badan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa uu geeriyooday qof walbana waa uu geeriyoonayaa oo geeridu waa xaq waxaan isaga tacsiyeynaa dhammaan geeridaas waxaana ku soo gabagabeynayaa inuu ilaahay naxariistii janno uu siiyo dambigiisana uu dhaafo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh DMI